waxaan idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee noogu soo dhaweyseen xadka ee naga hortimaadeen maaragtay waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa Goray Cawl runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta soo gaaray wafdi ka socday gudida amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Faafan iyo degmooyinka xuduudda la wadaaga goboladani galbeedka Somaliland waxaana halkaasi kaga hortagay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ay arkayaan barsaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyo meerka magaalada Boorame Saleebaan Xasan Xaddi taliyayaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Awdal waxaana halkaasi warbaahinta uga warbixiyay ujeedada socdaalkooda barsaabka gobolka Faafan waxaana uu yiri waxaan idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee noogu soo dhaweyseen xadka ee naga hortimaadeen maaragtay waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa Goray Cawl runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sida qiimaha leh sharafta leh walaaltinimada leh ee maaragtay waxa weeyaan noogu soo dhaweyseen waan idinka mahad celinaynaa kulley wada shaqaynteenu iyo xiriirkeenu ma aha mid maaragtay hadda bilaabmaya xiriir wanaagsan oo jaarnimo derisnimo wada shaqaynaba maaragtay runtii naga dhaxeeya waxaan u soconana waxa weeyaan taas inaan sii xoojino sababtoo dadku maaragtay waxa weeyaan labada shacab waa dad isku mid ah ehel ah wada dhashay oo runtii maaragtay waxa weeyaan xadka mooyaane wax kale oo maaragtay kala qaybin kara una jirin dantooduna maaragtay waxa weeyaan dhan nabadgeliyo dhan ganacsi iyo dhan maaragtay waxa weeyaan horumarba ay isku xidhan tahay weeyaan marka runtii aniga iyo maaragtay wafdiga aan hogaaminayo gobolka Faafan ka socda runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta Boorame aan nimaadno wada shaqaynteena iyo xiriirkeena maaragtay waxa weeyaan mid wuxuu noqon doonaa aan sii joogteyno oo adag oo runtii maaragtay waxa weeyaan asaaskiisu yahay nabadgelyada horumarka iyo maaragtay wax weyn dhinac walba inaan maaragtay ka wada shaqeyno iska kaashano sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina mas'uuliyiintani soo dhaweeyay meerka magaalada Boorame Saleebaan Xasan Xaddi iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Awdal Awaale Faarax Cilmi waxaana ay yiraahdeen halkan maanta waxa ku dhan maamulkii gobolka Faafan qaybihiisa kala duwanaa oo uu hogaaminayo barsaab ku-xigeenkii hogaamadiisii nabadgelyada ee kala duwanaa maamuladii degmooyinka waxaan leeyahay gacmo furan kulankan waxa weeye waa kulan joogto ahaa oo bilo ahaa markii kulankii ku horeeyay waxaanu ku galnay Awbarre kulankana waxaanu ku ballanay inaanu ku galno degmada Boorame hadduu Ilaahay raahdo welcome waa soo dhaweynaa waa dalkiinii waa dadkiinii xuduudku mayna kala qaybiyay laakiin waxa weeye beertaydina halkaas ku taala midna halkaas ku taala sidaa umad idinkuna u kala qaybsantiin oo walaalihiin xalayna joogeen idinkuna aqarka kale u joogteen waxaad ilaahay waa dalkiina soo dhawaada koobaad waa soo dhawaada qaybaha dambe yaan kulanadan yeelan doonaa ka wada hadli doonaa soo dhawaada aad baa idin soo dhaweynaynaa runtii ka shanaad aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa degmada Boorame gobolka Awdal maamulka heer gobol ah maxaan ku dhahay kiilka shanaad amni iyo maxaan ku dhahay saraakiishii kiilka shanaad anagoo halkan ku dhan maamulkii gobolka Awdal iyo kii degmada Boorame taliye qaybta gobolka Awdal intaasi kadib mas'uuliyiintani ayaa kulan ballaaran ku yeeshay hoolka shirarka dawladda hoose ee Boorame shirkani oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin warbaahintuna ay dibad joog ka ahayd ayaa waxa ay noo sheegeen in ay shirkani ujeedadiisu ahayd sidii ay u xoojin lahaayeen isla markaasina ay dardar u sii gelin lahaayeen kulamada inta badan ka dhaxeeya labada guddi isla markaasina ay u xoojin lahaayeen amniga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka isla markaasina ay dhinacooda istaagi lahaayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen isla markaasina u joojin lahaayeen taariibta oo inta badan dadku ay ka cabanayaan waxaana xusid mudan in kulankani kii ka horeeyay uu ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankanina waa kulan joogto ah oo 3 biloodba hal mar qabsooma isla markaasina ay yeeshaan mas'uuliyiintani Maxamed Cabdilaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Boorame.